haddii aan ku weydiin lahaa maxaa ku dhacay qofkan waxaad ku jawaabi lahayd koomo ayuu ku jiraa ama xaalad caafimaad darro ayaa haysata laakiin arrinku sidaad u malaynaysid ma ahan ninkan isaga ayaa xaaladdan isgeliyey waana khiyaano ku talagal uu u sameeyey hal shay dartiis ayuuna koomo been ah 2 sano naftiisa u geliyey si uu kaga badbaado in aanan loo xukumin dembi uu galay haddaba muxuu ahaa dembiga ku qasbay in noloshiisa koomo uu geliyo ninkan maxaase kadib dhacay bal aan kuu sheego ninkan loo maleeyo in si daacad uu u xanuunsanayo ama koomo ku jiro waa nin 2 sano oo dhan koomo been ah ku jiray wuxuuna been u sheegay weliba khiyaanay dhakhaatiir mas-uuliyiin maxkamadeed iyo dad deris la ahaa wuxuuna koomadan beenta ah u galay si aanan loogu ciqaabin dembi uu galay darteed khiyaanada uu sameeyeyna waxaa ka caawisay xaaskiisa oo iyadana qayb ka qaadatay dembi uu geystay ninkan waxaana la ogaaday mar dambe ninkan waxaa lagu magacaabaa Alan Knight 47 sano jir ku nool dalka Ingiriiska wuxuuna $64,000 kala baxay akoonka nin da ahaa derisna uu la ahaa oo qabay cudurka Alzheimer's lagu magacaabo oo ah cudur ku dhaca maskaxda qofka xasuustiisana ee lunto markuu ku dhaco qofkana kaligiisa ayuu isla hadlayaa wuxuuna noqonayaa qof aanan maskaxdiisu joogin ninkan maskaxda ka yar xanuunsan ayuuna akoon nambarkiisa ka qaatay kadibna akoonkiisa ayuu kala baxay lacago gaaran $4,000 lacagtii ayuu kala baxay muddo kadib ayaana la ogaaday qoyska ninkii xanuunsanaa uu lacagtiisa qaatay ayaana maxkamad ka dacweeyay ninkan markii la dacweeyay kadib maxkamadda ayaa warqad u soo dirtay si uu u tago maxkamadda balse qof caqli badan buu ahaa wuuna fahmay in la iska daba yimid wuxuuna iska dhigay qof xanuunsan isla markiiba wuxuu tegay isbitaal si xaaladiisa caafimaad uu u soo hubiyo balse qof xaaladeysan ayuu iska dhigay kadib xaafadiisa ayuu dib ugu soo laabtay xaaskiisa iyo isaga ayaana dejiyey qorshe ay kaga badbaadi karaan in maxkamad la soo taaga ninkan khiyaanada badnaa wuxuuna koomo beenaha isku geliyey gurigiisa xaaskiisa ayaa isbitaal ku carartay kadibna dhakhaatiir ayay ka soo waday waxayna dhakhaatiirtu u sheegtay in seeygeeda xaalad halisa uu ku jiro loona baahan yahay in si degdeg ah wax looga qabto kadib dhakhaatiirtii ayay keentay xaaskiisa waxayna ku wargelisay in neefta ay dhibayso isagana wuxuu markaas iska dhigay qof neefta ay dhibayso xaaskiisa isla markiiba maxkamaddii ayay warqad u dirtay oo ay ku sheegayso in ninkeeda uu koomo ku jiro dhakhaatiirtii ayaana ninkan oksijiin ku xiray gurigiisa ayayna koomo ku geliyeen dhakhaatiirtii waa iska tageen ninkanna koomo been ah ayuu isaga jiray markii ay tageenba dhakhaatiirtii isla markiiba gurigiisa ayuu si caadi isaga joogay xaaskiisa sawiro aanan sax ahayn ayay ka qaadi jirtay xilli walba isagoo koomo ku jiro oo kale kadibna sawiradaas ayay faafin jirtay si loogu maleeyo in ninka weli uu xanuunsan yahay ninkan si caadi ah ayuu gurigiisa isaga joogay koomadana been bay ahayd dembigan dartiis ayuuna koomada halista badan isku geliyey guriga kama uusan soo bixi jirin ninkan si aanan loo fahmin 2 sano ayuuna sidaasi ahaa balse hal qalad ayuu galay qaladkaas oo sababay in la fahmo kadibna la xukumo qaladkan wuxuu ahaa in maalin maalmaha ka mid ah uu xaaskiisa u raacay dukaan weyn oo supermarket ah si ay kaga soo dukaamaystaan ninkan isagoo socda maskaxdiisana caafimaad qabta ayuu dukaankii weynaa oo ku yaalay xaafadda uu degan yahay tegay kadibna isaga iyo xaaskiisa way ka soo dukaamaysteen si tartiib ah balse iridda hore ee dukaanka waxaa ku dhegneed CCTV kaamirada qarsan ee wax duubta booliiska ayaana isla markii arkay ninkan oo socda dukaamaysanaya maskaxdiisana ay caafimaad qabto booliiska dhexdooda ayaa dood ka dhex dhalatay kuna saabsan ninkan inuu xanuunsan yahay inuu koomadan beenta ah jilayay muddada dheer iyo in isaga uu yahay qofkan iyo in qof kale uu yahay markii si fiican loo baaray kadib ninkan waa la fahmay khiyaanadiisii gaarka ahaydna way dhammaatay isaga ayaana 2 sano kadib isfashilay si degdeg ah ayay booliiska ku amreen in ninkan maxkamaddu uu yimaado wuuna adeecay amarka maxkamadda maadaama uu ogaaday in dukaanka laga arkay wuxuuna ogaaday in dukaanka lagu arkay wuxuuna ka soo muuqday maxkamadda Swansea Crown isagoona weli ku fadhiya kursiga cuuryaamiinta xaaskiisana ay riixayso laakiin isaga ayaaba qirtay dembiga uu galay oo ah in lacaga tiro badan uu ka xaday odaygii da'da ahaa been abuur aanan jirin uu sheegay iyo tuuganimo maxkamaddii ayaana gaartay go'aanka kama dambaysta ah ee dembiga uu galay ninkan 2 sano dhanna meermeerinayay garsoorayaasha maxkamadda beentana u sheegay deriskiisa $64,000 ka dhacay ninkii deriska la ahaa
ugu dambeyntii November 7 2015 ayaa si isku mid ah loo xukumay ninkan iyo xaaskiisa isku garab siiyay been abuurka. xaaska ninkan iyadana waa la xukumay maadaama ay gacan ku siisay ninkan in ay qariso beenna ka sheegta caafimaadkiisa. Helen xaaska ninkan waxaa lagu xukumay 10 bilood oo xarig ah. dambiilihii koomada beenta ahaa ku jirayna ee Alan Knight ninkanna waxaa lagu xukumay 14 bilood oo xarig ah oo u dhiganta sanad iyo 2 bilood. waxa uu sameeyay Alan Knight aad ayaa loola yaabay iyo in 2 sano oo dhan kooma beena gurigiisa uu kula jiray xaaskiisana garab ka siisay. muuqaalkii maanta intaan ayaan ku soo koobayaa. fadlan like saar muuqaalkan haddii aad ka heshay naguna soo bir si aad u hesho muuqaalo joogto ah. tani muuqaalkeena xiga berri waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo amaana Allah. mahadsanidin.